Xabiiba. Magaca Xabiiba micnihiisu waa jacayl ama qof dadka oo dhan ay wada jecel yihiin. Waana mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha. Amaani. Magaca Amaani waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo carruurta, gaar ahaan gabdhaha. Micnihiisuna waa wanaag ama filashada wax wanaagsan. Ibtisaam. Magaca Ibtisaam waxaa lagu fasiraa dhoola caddayn ama qof mar waliba ay wejigiisa ka muuqato farxad. Waana mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha. Najma. Najma waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha. Micnihiisana waxaa lagu fasiraa xidig iftiin badan kaasoo dhalaalaya. Cafiifa. Cafiifa waa mid ka mid ah magacyada ugu wanaagsan ee gabdhaha loo bixiyo. Micno ahaanna waxaa lagu fasiraa mid dhowrsan ama midii ka dhowrsaneed waxyaabaha xunxun. Duniya. Duniya waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee gabdhaha loo bixiyo. Sida micno ahaan ka muuqatana, duniya waxaa lagu fasiraa nolol ama duni. Anisa. Anisa waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha. Micnihiisana waxaa lagu fasiraa mid saaxiib la ah oo u naxariisata dadka kale. Basma. Basma waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee gabdhaha loo bixiyo. Micnihiisuna waxaa lagu fasiraa farxad ama midii farxadda lahayd.